بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. وعاو halkan xafladda isugu ka keenay taliyada rasuul Allah waa masjidka Arabsiga ku yaala oo 3 sanaba xiraan masjidkaas oo cod gaar ah ama dala gaar laga leeyahay inta gaarka uu xuleeyay waxa weeye dad la doonayo inay iyagu masaajidka ama asxaabtu si gaar ah waxa weeye daba waxa halkan xukuumadda si toos ah si dadku uga sheeganaa annagu ah dhalinyarta Arabsiga inaan barnaba raali ka noqon doonin masaajidka Arabsiga ku yaala ee mudada xiran haddii aad dadka reer Arabsiga ee go'aansaday in masaajidka ku tukadaan ama cid reer Arabsiga ay wadato dhalinyar ahaan odayaal umar cid walba iyagoo oo xukuumaddu ka gaabisay inay ku wareejiso masaajidka kula cibaadaystaan ilaa ay bixi haatan la ciidamada ka riixaso dad qandaraasleeyaala oo masaajidka qandaraaskiisa ku jiray ilaa ay bixi ciidamada ka riixaya waxaan si toos cod dheer iyo cod gaar ah u diraya xukuumadda in hawsha faragelin toos ah ay ku yeelato dadka reer Arabsiga sidooda faraha looga qaado haddii looga qaadi waayo cawaaqib keenay ama cawaaqib ka dhici doona cidda geysata ama cidda mas'uuliyaddeeda leh wala garanaya hawo horeeyo wasiirka diinta oo qafta ومالها وسارة ضد كل شيء وحولها يكسر وخرجت. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد وحوي وحن دوننا إلى نكهر الله أنه رليتي مجالات عربية مساجد ay maqalkiisa ku bandayd dadka reer Soomaaliland ama dadka Arabsiga ku dhaqan oo siyaabo qadan qof walba jacaylkiisa uu ugu turjumanayo dhaliishana dusha laga saarayo dadka reer Arabsiga waxa weeye masaajidkan anigu wuxuu baan ka taabanayaa sifihii uu ku bilaabmay horta dad islaam oo ka jid islaam way nahay عيدنا ما تيجي كتب مساجد أي عيد ديدا يوم مساجد با مكرنا صحيرنا رسول وعنا رب ساسو دي لايه أي كم قلصات ضد كترانسبورتيشن كسعدا ما تجانا ذن كله وقالوا يك كله عربي الله تعالى وحوي مساجد هو سفيه وكبل عمي وحكم ذا مركه هراء وحلو كبل عمي لو بلوري لبني كليب سريع ninkii soo dhisayna wuxuu joogaa Saudi Arabia dad qandaraasleeyaalo wuxuu u soo dhiibay wadaadaha dabadeeto tii way ka gudubtay waxa ku gudubtay in la yiraahdo waxaan ku dhiganaa warshad biyood deetana warshada biyaha markii la dhisay afartii dhinac gidaarkii la dhisay ayaa waxa loo yeelay mixna dadkii reer Arabsiga waxa ku noqotay inay la yaabaan warshadan mixraamka loo yeelo dama warshad baa lagu tukanayaa ila warshad baa ku baxay magaciisa dabeetana wala joojiyay maayirkii degmada joojiyay wuxuu yiri hala joojiyo si loo soo fasaxayba masaajidkii wala soo fasaxay masaajidku xilliga 3 sano ka hor loo soo fasaxay la dhisayay waxa qabiya ahaa masaajidka Arabsiga miski jaamac culimadii waaweyneed iyo odayaasha xuqaasha ahaa waxay ku taliyeen oo ay kula tashadeen dadkii qandaraaska watay in lagu daro miski jaamaca dhismiisa waynaga aragnayo iminka haddaad Gabiley u baxdo iyo haddaad Boorama u baxdo intaba waxaad arkaysaa masaajidda dhisano xidhan baad arkaysaa qaarkood waxaan maqlay inay dameer ku dhex baqtiyeen taasina waxay ahayd policy-ga wasaaradda diinta iyo qaaftu inay u taalo ay xadayso masaajidada la dhisay haddii aan sidii wanaagsan loogu tukanayna caadiga ee islaamnimadii aan loogu tukanay deetana dadkii qandaraaska watay waxay yidhaahdeen annagu kuma darayno miski jaamaca kuma darayno ee masaajid baanu dhisayna bilasina si daro umay suurtoobin odayaashii iyo cuqaashii iyo culimadii ninkii soo dhisay mulkilihii inay markaa la xidhiidhaan furitaankiisi waxa loo furi waayey faragelin
dal iyo faragelin dibad iyo gudaba leh oo dad xukuumadda ka tirsan gaar ahaan wasiirka diinta iyo qaafto uu wado uu horena arabsi ugu dhaleeceeyay inay dad laba yeelano intay abaabuleen masaajidkaasi waa qubuuro waa lagu tukadaa qubuuro ay caabudaan deetana bil rabadaan oo la cibaadaysan lahayn aanu hadalkaa ku jiro taana waa aqbalay waxa weeye hadda waxaan ogeysiinaynaa cidday khusayso dhammaan baamliga Soomaaliya dowlad ha noqoto gudoomiye ha noqoto warasab ha noqoto xildhibaan ha noqoto annagu ka reer arabsiyad ahaan ka dhalinyar ahaan inaan jecelnahay nabadgelyada mandaqada nabadgelyada Soomaaliya waxa weeyaan inay runta laga sheego haddii ay yidhaahdaan aan mashruuc masaajid baan soo helay oo Sacuudiga iyo ka soo qaado mashruuc masaajid baan sidaa hadduu qofku yidhaahdo run ka sheego waxbaa marka masaajidkaasi waa mashruuc masaajid oo Sacuudiga laga soo qaatay nin daahir ilaahay Cabdilla Saacad oo wakiil u ahaa deedna qacan farabadan soo dhaxmaray ujeedkooduna ay garanay dhacdayba la dhis masaajidka dadweynaha raabso iyaga xaq u leh cid tujinaysa ee ka dhiganaya imaamka iyo mu'aadinka u dhiibanaya arintaasi muddo la galay ee guddi baa loo saaray uu ka mid ahaa inay taliyaha qaybta xogayaha degmada gobolka Gabley gudoomiyaha degmada Arabsiyood iyo odayaal baa galay markii mudaarika la galay waxa la soo saaray in masaajidka furiisi وصفها قلت كاكو بالعمل فريق عدل وسوقي تدخل يجا دورت عدة تجنس تدوين هي وضياشي عقاشي يدل يردي يمام وكانت تجوجبوا واحد أصلا كرتين الفريق عدل وسوقيو تدارو جبتها لاعب كمجال لكن أرين تاسي ولا يمكن ويوجد بالجلي هاي وواحد هذي عربسيو هاي نحرينه dalka meelihii kala dhawan ka soo farxaloon qabsanay arabsan ugu hadhay arabsi biisan ka samaysan meelka sabaha lagu bilaabay masaajidka ee markii hore warshad looga dhigay waayo arabsi markii hore masaajidka wala ku filan ilaa 7 masaajid ay ka dhisay magaalada oo isku waqti muddo dhow isku jira hadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda waraaqihii iyo rabitaankii dadka odayaashoodii iyo uqaashoodiba way u gudbiyeen wasaaradda dakhliga inuu og tahay wasiirka amniga ugu horeeyo waa loo sheegay seen nimankii waxaan ku doodayaan ku aan ducoonayaan waxa weeyaan waa afrima kaliya oo qaarkood meherada haystaan oo qaarkood shirkado wakiilo weeyii masaajidka maanta arabsiyo intaasoo jeer dadka tafaafulka iyo buuqa iyo qaylada dhex keenay isagoo aad ma lahayn waxa aad dadkii buuqaasi iyo hawshaasi umada maaragta masaajidka qiimaha leh ee lagu tukan lahaa ka dhalisay dawlad baynu dooranay dawladda waxaynu dooranay in wixii danteena ah iyo wixii ma garanaysaa horumarkeena ay ka shaqeyso umaynaan dooranay buuq iyo khalkhal geliso iyo had iyo jeer ale munaafaqad inay magaaladii iyo dadkii wada deganaa had iyo jeer ale ka dhex aloosto looma dooranay waxa weeye maanta codka la keenay halka sanduuqyada loo codeynay dawladda waxa codka bulshada waa la aqbalaa si fiican waa loo aqbalaayo waa la soo dhaweeyaa marka cod laga doonayana waa la aqbalaa maxay ahayd hadaladooda maxaa loo aqbali waayaa danaha guud ee bulshadu ay ka faa'iideysanayso waa masaajid waa meel maanta lagu cibaadeysan lahaa bulshadii sibay wada doonaysaa maanta dhalinyartii baa halkan joogtay sharafkii baa joogay iyo intii iyo awlaadooda hadday odayaashii tahayna sidaan warka ku hayno odayaashu mar walba way shiraan way daaleen hadday salaadiin tahay hadday cuqaal kale tahay hadday odayaashii tahay maanta waxa meesha maraya waa dhalinyaradii dee waxa weeye dadka in la xiijiyo maaha oo la daaliyo maaha in rabitaankooga iyo waxyaabaha danahooga ah loo tixgeliyo oo la aqbalaa xaq baa ugu leeyihiin dawladda waxay u doorteenna waa intaasi weeyaan haddii jeer alle lagu cansiiriyo wixii danta guudahay iyo muhiimiyaddii masaajid bay maraysaa ayada meel lagu wada hadlaba ma ahayn dee berrito hole khalkhalka iyo buuqa yimaada iyo dhibaatada timaada ya dee markaa yaan dadka shicibkaa iyo dadka bulshada ku dhaqan aan la eedaynayn dawladdu eedaas
iyadu korkeega ha saarato haddii ay dhibaato timaado waana imanaysaa dhibaato haddii ay wixii bulshadu xaq u lahayd lagu soo celceliyo lagu caansiiyo waxaan aad iyo aad uga xumahay aan aad iyo aad uga murugeysanahay in bulsho intaa leeg 3 sannadood wax isku mid ah ay had iyo jeer aan conflict ku soo noqnoqdo iyadoo oo aan maanta la xallin kari lahayn oo iyagoo dhexdoodii ay soo tashadeen ay xalliyeen cuqaashii baa hadashay meel walba xafiis wala dawladdu waxay iyagoo isku duuban hadduu conflict yimaado waxa la eegaa siduu saameynaya meesha number intee leeg baa conflict-gan uu saameynaya oo bulshadii oo dhanba way wada socotaay waaba isku duuban yihiin oo meel bay wada marayaan ma laba qof iyo bulsha la isbarbar dhigaya waa may waxa qurux badan inay dawladdu ka waantoodo waxyaabaha iyadana samcad darrada u ah bulshadana burburinaya haddii kale waxaan u turjumanaynaa in ay tahay dawlad aan tixgelinayn waxa ay rabaan shacbigeedu shacbiguna markaas dee waxay noqonaysaa in ay halkii ay markaa dan u arkaan ay ma garanaysaa ay iskugu biyo shubtaan in la istixgeliya oo shacabka la tixgeliya waxay saldhig u tahay horumarka waddanka oo dhan waxa weeyaan arabsiin laga dhigo hashii laba midugluhu u leeyay noqon mayso dee bulshada reer arabsiyo waa far keliyaata waana gacan keliyaata waxaanu leenahay markaa haddii ay waraaqihii heer madaxweyne gaadhay ilaa heer wasiir ilaa heer barasaab ilaa maayirka degmada arabsiyood gaadhay hadday wax qaban waayaan oo waraaqahoodii la tixgelin waayo oo cuqaashoodii la tixgelin waayo oo culimadoodii la tixgelin waayo oo bulshadii rag iyo dumarba lahayd la tixgelin waayo oo dhalinyartoodii la tixgelin waayo halkee loo wadaaba marka la weydiinaya dawladdaanu weydiinayna weliba barasaabka gobolka Gabley baanu weydiinayna oo ilaahay amniga uga mas-uul uga dhigay gobolka Gabley amniga madaxweyne wuxuu ilaahay uga dhigay oo mas-uuliyadiisa dusha ku qaatay de waa barasaabka waxaanu leenahay barasaabka gaar ahaan arrintan reer arabsiyoodeed ka dhigaysa laba cududood oo is haysta ama laba maxaa ku dhahday qolo oo iska hor timiday maaha ee waraaqaha xafiiskaaga yaalla hoos ugu noqo baan leenoo akhrisatay ha iska indhatirine oo cuqaashii kuu timiday wax ka caqbal meel kastaaba hal door bay leedahay haddii qabiil tahayna hal door bay leedahay hadday xukuumad dhisan tahayna waxaanu leenahay hal door bay leedahay oo haddayna hal door lahayn dima axmed madaxweynuhuba somaliland madaxweyne looma aqoonsaday oo waayo hal doorkee maanta somaliland waa madaxweynaha dhisanta oo xukuumaddaas ay noo hal doora marka waxaanu leenahay bulshada reer arabsiyo horena way u tashatay maantana way tashatay dhalinyarta inta badan waxa hor joogay waxay ahaydun de waa odayaasha iyo cuqaashaas iyo hadday noqoto wixii maxaa dawladda uga shaqeeya ama amniga uga shaqeeya ama diiniga waqaafa uga shaqeeya ama cidday doontaan waxay doonaan uga shaqeeyaan ciddii dawladda u shaqeynaysay bay oo had iyo jeeraale ay hadkii xafiis lana xafiiskiisa ay hortaagnaayeen kii odayaashii aabbayaashood hadday tahayna ay gurigooga hortaagnaayeen oo odayaashu lahayn maanta waxay imanaya furihii baa berri imanaya waxay noo soo sida dawladdii baa inoo soo sida war dawladdu madiinkiisa aan tegay baa haddaba waa 3 sano miskiidkan waxa maxaa ku dhacay xidhayna waa dawladda ee reer arabsiyood may xidhinde waxaanu leenahay markaa laba inaan haddii miskiidka loo dhisayna miskiidka arabsiya laga raro meeshii iyagu ay ku kaaftoomi karayaan ha loo geeyo haddii bulshada reer arabsiyood loo dhisayna bulshadii reer arabsiyood horena way u sugaysay maantana way sugaysaa waxaana nuu taagannahay caawada laga bilaabo waa furihii masaajidka oon hadal kale lahayn iyo bulshadiiyo halkii ay ugu tashatay iyo ciddii ay u dhiibanaysa bulshada reer arabsiyo hal doorkoogana waa la yaqaanaa waa cuqaashooda ha loo dhiibaan leenahay haddii xal la doonayo weeyaan haddii kalena dee waanu furan garanaynaa annagu manaanan waxaan intaasoo dhan aan u daba taagannahay waa dawladda ha gacan dhaafina odayaashiina ha gacan dhaafina
waalidkiina ha gacan dhaafina markaa gacan dhaaf ha nagu kalifina baan leenahay assalaamu calaykum waraxmat سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم hadalka dee horaa loo waday hadalkana haddii lagu sii raago waxa weeyaan macno ma laha magaaladan dalkan qarankan jamhuuriyadda somalilan adeer dhib badan baa loo soo maray waddankan malaayiin inta naf iyo maal ku socotay dalka waynu wada ognahay qofaan dee kalbahaayimi aan waxba ogeyn dee mashaahidiinta lamida mooyaane waddanka halka loo soo maray waynu ognahay waddanka inta kun ee inanay ku maqan baa loog yahay waddankan inta kun een ma garanaysaa ilaa iminka aan lahaynin raq iyo ruux meel ay dhigeen intaba waa loog yahay dalkan iyo dawladdan dhisan baanu anagu sabood garaynaa waxaanu taageersannahay dalkan iyo dawladdan iyo diinta cidda si fiican uga shaqaynaysa waxaanu si buuxda uga soo horjeednaa wixii nabadgelyada dalka iyo dawladda noo dhisay halkaan u soo marnay aan ogeyn rabash gelinaya waddanka ilaa iminkaa lafaha iyaga adeer la soo saaraa maalin kasta daadka kuu soo saariyo ku halkaa ma garanaysaa cisho walba waa ta loogu yahay dhibaatada maalin walbaa lagaa ka taagan dadkaasi waxay u dhinteen ee naf u waayey waxay ahayd in loo cibaadaysto camal nabadgelyo iyo xasillooni ayay nafahooga ay ugu jeclaayeen u jareen maantana yar iyagu intaa joogta waxaanu doonaynaa amni buuxa in la helo waxaa adeer soo baxay oo iminka nimaan dee nin indhalo oo isdhigatiraya amba isna indhatiraya mooyaane rag dalkan iyo dawladdan iyo diintanba inay qasaan doonaya magaca ay ku soo marmarsiyoonayaanna uu yahay masaajid waxaan leenahay qalcadihii rasaastaa noqdeen rugihii diintii adeer kolba qalcad minateri oo la doonaya in dalkiiyo diinta lagu khalkhalgeliyo lanaga duldhisi maayo annaga haddii sidii hore loo sheegay halkaasi ay magac masaajid ay leedahay ama masaajid uu yahay masaajid hadday tahay masaajid macnihiisa waa la yaqaanaa iyo waxaa loo dhiso waa in lagu cibaadaysto ilaahayna lagu caabudo waxa weeyaan haddii halkaasi ay masaajid tahay waa masjid macnihiisu waa meeshii lagu sujuudaya ay tahay ya sujuuddii iyo rukuucdii iyo ducadii iyo wixii loo dhisay waxa weeyaan masjidu diraarku ilaahay quraanka kaga warramay la masjidun si saala taqwa ilaahay baa quraanka mala quraanka de macnihiisa ma waa la xifdisan yahay baa la maraha dadka looma macneeyo in macnaha quraanka suuratu tawba ka warramaysa masjidu diraar macnihiisa la taqum fihi abadan ya waxa ilaahay quraanka uu ku sheegay masjidu diraarki maalintan uu taagnayna ilaa maanta uu taagay ya la noo soo geli maayo annaga masjidu diraarki ilaahay ka warramay ee uu in aradna ila husna khayru khalqillahi giba ka horlaay ilaahay ma waxaan u jeednaa un dar Allah ilaa maalinta dar Allah ilaahay dunyada rumaysana aayada quraanka iyo macnaheedu waa sidii uu assalaamu ya dhalinyartan diyaarka u ah inay diintooda iyo dalkooda ay xafidiyaan oo ilaashadaan waxaynu halkan isugu nimid waa arrin diineed maxaa soo cusboonaysiiyey maanta arrintii 3 sano socotay ma laga nastay waxaanu hambalyeynaynaa bara saabkii hore Mustafa Shiine ee naga xiray fidnada markii la isku afgaran waayay ee amarkii wasiirkana joojiyey alqaafta waxaa soo cusboonaysiiyey maanta bara saabkii lagu bedelay baa soo cusboonaysiiyey kelmaddu ku hadlayna ahayd qaadiriye igu yeedhay cidda amarka soo fartayna ay ahayd salafiyiin nimankaas oo afkiisa ka sheegay oqaashii reer Arabsiyood iyo dadweynihii reer Arabsiyood baa u tegay deetay isaga afkiisa uga sheegay oo yidhi salafiyiintii wajaale iyo salafiyiintii boorama iyo salafiyiintii gabiley oo uu hogaaminaya inaan reer Arabsiyooda oo xafiiska dahabshiil haya ayaa halkan igu yimid buu yidhi wara saabku isaga oqaasha u sheegay oo u sheegay dhalinyartii wixii halkaa ugu tegay ee uu yeedhay bara saabku fitnadii ruuday isaga soo toosiyey waxa soo toosiyey
inanka yare uu sheegaya reer arabsiyada xafiiska dahabshiil haya iyo isagiisa ka aqbalay iyo nima caqligu ku odhan waayey dee reer wajaale salafiyiinta wajaale iyo boorama arabsiyama iyaga u culimo ah uma aha culimo dahabshiilka waxaanu leenahay xafiiskaagan haddaad ilaashanayso hadhow xoolaa layga dhacayo xoolaa layga lahay 3 sano waxa qaska la jooga waa xafiiska dahabshiil baan leenahay gudin yahay barkay haduna kugu jirin buul imaad goyseen waxa waxaan dad eedaynayna ama ay dawlad eedaynayna waxa ku jirta bad kamida arabsiya ku jirta waxaana ugu horeeya xafiiska dahabshiil oo aan in badan ka ashkatoonay imigana ku ashkataynayno ama daashaha ama salafiyaada ama tabliiqaada anagu riyaar sabban riyaar siyadna cidda ka dhex baxda iyada iska saartay dano kama saarin ninka sheegay waa bara saabka weeyaa ee yiri ciddaas hogaaminaysay anagu intaasaan leenahay bara saabka iyo dawladda dahabshiilna fariintaas aan faray waxa loo halka fadhiyo waa aqoonyahan nin walba xafiiska dahabshiil nabadgelyo ku hayo wax nabadgelyo ku hayaan oo keen baan leenahay hadday shaqaalaha qabsan kari weyneen wax nabadgelyo ku hayaan oo keen baan leenahay horta caado ma lahayn inay intaasoo dhalinyara oo dhowr boqol ay halkaas ugu timaado oo TV ka hadasho ama ay had iyo jeer arabsiga ma aha dadka intay TV ga soo istaagaan mar kasta wax ka dacwada amba cabashada badan amba wax ka dalbada laakiin caaw maxaa kalifay dib taala ayaa kaliftay foolxuma kaliftay inta la dhax dhigay masaajid aan looguna talagelin in lagu cibaadeysto lagu tukado haddana had iyo jeer arabsiga la saaro fadhixadiisa dhalinyarta arabsiga had iyo jeer wax la dhahay maxaa wax looga qaban lahayd maxaa sida loo oran lahayd maxaa wax loo sameyn lahayd waxa sababay de waxa weeyaan maamul baa leeyahay mas'uuliin baa leeyahay wadaal baa leeyahay wax weeyaan wax kasta waxay leeyihiin taranjar lama laakiin haddii ay taasi socon weyday oo uqaashii la dhageysan waayey oo maamulkii la dhageysan waayey oo mas'uuliintii la dhageysan waayey oo xukuumaddii wax ka qaban weyday maanta waxaan u diraynaa waxa weeyaan codsigii ugu dambeeyey oo ah dhalinyartii magaalada oon kala had lahayn marka waxa weeyaan anigu waxaan leenahay dawladda siiraayo dawladdeena sharafta leh maxamed axmed siiraayo in si dhaqsaa wax uga qabataan leenahay masaajidka hadduu masaajidka ummadda loo furaan leenahay anagoo horsaana furihiiban sugan hadduu masaajid yahay haddii kalena sheega kaloo yaro magaalada laga dhex saaran macaga kala gudo waa go-aankeega u dambeeya haddii kale annaga furanayna wixii ka yimaadana cidda mas-uuliyadda aan gaarsiinayna warka ayaa qabta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu